barnaamijkan nabadeed oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Gauteng ee dalkan Koonfur Afrika waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ururada ka shaqeeya xuquuqda aadanaha ee ka jira dalkan Koonfur Afrika waxa uu ka dhacay magaalada Johannesburg ee dalkan Koonfur Afrika. Mudaaharaadayaasha ayaa socod dheer ku soo maray xaafado kamid ah magaalada Johannesburg oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen dhibaatooyinkii lagu hayay dadka ajaanibta ee Afrikaanta u badan ee u soo ganacsi tagay dalkan Koonfur Afrika ayaga oo watay boorar ay ku muujinayaan dareenkooda dhibaatada loo geystay dadka Afrikaanta ah ee ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika. gudoomiyaha gobolka barwaaqan sooranka ah ee Gauteng David Makuro madaxda diimaha qaar kamid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa goobta kula hadlay dadkii ka soo qayb galay mudaaharaadka nabadeed oo ahaa mid aad looga soo shaqeeyay isla markaasna lagu dhaleeceynayay loogana soo horjeeday dhibaatooyinkii lagula kacay dadka ajaanibta ah ee u badan Afrikaanka ee ku sugan dalkan Koonfur Afrika ee u soo nolol doontay. Soomaalidii ka soo qayb gashay barnaamijkan ayaa sheegtay inuu ahaa barnaamijkan mid wax ka bedeli kara dhibaatada loo geysanayay dadka ajaanibta ee ganacsiga ku leh dalkan Koonfur Afrika haba u badnaadeen Soomaalida. barnaamijkan soo kordhin kara oo la qiyaasi kara inay wax badan ka bedeli karto wajiga South Africa in la dhigi karo South Africa kala jirta ka soo horjeeda xorofobiga South Africa kala jirta ka soo horjeeda waxyaabaha dhacaya South Africa kala jirta Afrikaanima amisan baana barnaamijkaas oo ku saabsanay Namibia ka jirta South Africa oo laga wada hadlay oo dadku madaxayna ka soo qaybgaleen anaga oo magacaygu yahay Musa Xuseen waxaan rajaynaynaa qaladka hadda dhacay inay mar labaad dhici doono insha Allah. intii uu socday barnaamijka ayaa waxa wadooyinka soo buux dhaafiyay kumanaan kamid ah dadka u soo shaqo tagay dalkan Koonfur Afrika ee ka yimid qaaradan Afrika ee ganacsiga ku leh magaalada Johannesburg ee xarunta ganacsiga arkeen inay jiraan qaar kamid ah dadka Koonfur Afrika u dhashay oo ka soo horjeeda in wax la yeeleeyo walaalahooda Afrikaanka ah ee nolosha u soo doontay dalkan Koonfur Afrika. waxaana la filayaa barnaamijkan oo kala inuu ka dhaco magaalada xeebta ah ee Cape Town taa oo ay qaban qaabinayaan maamulka iyo guddiga ururada u shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ee ka dhisan dalkan Koonfur Afrika. Aidos Abdi Hassan TV caalamiga Universal magaalada Johannesburg Koonfur Afrika.